C9 Plus ayaa waxaa hadda soo baxaya warar kala digrisan oo shirkaasi ka imanaya. Shirkani ayaa ka mid ahaa shirar dacwadyadii ama shirarkii gaargaarka ahaa ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu maalmahan ay ka wadeen Hotel Airport Hotel ee magaalada Muqdisho, waxaana kulamadani ahaayeen kuwo xal looga gaarayo caqabadaha ka taagan doorashada iyo shirka soo socda oo dhammaan ay isku hor fadhiisan doonaan dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirku intii uu socday ayaa mar ku sigtay in lagu kala dareero oo fashilmo kadib markii ay qodobo iyo shuruudo cusub ay keeneen hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland. Beesha caalamka ayaa ku celcelisay inaanu sax ahayn in heshiiskii 17 Sebtembar qodobo cusub lagu daro. Saddexda maamul goboleed ee kala ah Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo loo tiriyo inay yihiin garab iyo gaashaanba dhinaca dowladda ayaa dhankooda sheegay inay shirka isaga baxayaan haddii aan la joojin waxyaabahan tabashada ah ee dheeraadka ah isla markaana iska soo daba dhacaya. Warar kale ayaa sheegaya in beesha caalamku ay u sheegtay madaxdani in haddii aan lagu heshiinin shirkani in xaalku uu noqon doono mid kale oo waji cusub la yimaada. Waxay tusaale u soo qaateen in baarlamaanku uu doonayo waqti kororsi haddii aan heshiis lagu gaarin shirkani iyo loo ballansan yahay, taasi oo noqon doonta in beesha caalamku ay aqbasho. Wakiilada beesha caalamka ayaa shantan madax goboleed waxay ku boorinayaan inay qaataan doorkooda kaga aadan hirgelinta heshiiska doorashada 17 Sebtembar iyo in dalku uu doorasho aado isla markaana ay noqoto mid la isku raacsan yahay oo la isku waafaqo. Intii shirkan uu socday waxaa dhowr jeer xiriiro laga sameeyay dhinaca dowladda, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo beesha caalamku ay soo jeedisay in la ogeysiiyo waxyaabaha laga hadlayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaana aad u dhibsaday in beesha caalamku ay xiriiro la sameyso madaxweyne Farmaajo. Wuxuu u arkayay in beesha caalamku ay weli aaminsan tahay Farmaajo ama ay ka baqayso go'aamadiisa oo horey beesha caalamku uu kala hadlay inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa beesha caalamka aad ugu calcalay, wuxuuna u sheegay in dowladdu isaga maamulkiisii ay kala jirtay oo burburisay ayna macquul tahay in ay rabto in isaga meesha laga saaro. Wuxuu ka dalbaday beesha caalamka inay soo farageliso oo ay arrintani qaboojiyaan isla markaana dowladda Soomaaliya ay kala hadlaan. Daqiiqadaha soo socda ayaa laga yaabaa in laga soo saaro qodobo iyadoona ay dhiman tahay in madaxdani ay la fadhiistaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo midkood inta aanu la gaarin is horfadhiga shirka guud ee la isugu imaanayo.